siyaasiga caanka ee Maxamed Xasan Jaamac Abgaal oo ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani ayaa ku dhaliilay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi qaabka uu soo dhisay xukuumaddiisa waxaanu ka hadlay safaradii madaxweynuhu ku tagay dalalka Djibouti iyo Itoobiya iyo waliba guddi uu saaray sicir bararka arrimahaas iyo arrimo kale soo ka hadlaya siyaasi Jaamac Abgaal waxa hadaladiisa ka mid ahaa runtii dadkaasi waxaan leeyahay waa dad xaq u leh reer Soomaaliland u qalma xilka madaxweynuhu u idmaday waa dad u qalma xaqna u leh sharciyeena waa sharcigi dalka maran la maray waa mid dhameystiran waa sidii ugu habooneed baabsha soo dhacday hasaatee haddana marka dusha ka eegto xubad xasuusanaysa isweydiinaysaa markii wadamadii hantoodaga ahaa siyaasadii qaboobaa laga badiyay ay burbureen ayaa waxaynu maqalay wadamo yaryar oo soo baxay oo magaca reerka lagu sheego sida la igu macnaayay runtii ereyadaasi oo wadanka reehebel wax la sida Isaaqistan, Isaaqistan, Kurdistan erey noocaas oo waa wadanka reehebel macnihiisu aan ku maqlay imika waxaan baad soonaysaa xukuumadda sida u nidaamsan sharciga leh dadkii u qalmay loo magacaabay haddana marka dusha ka eegto soonaysaa war Soomaaliland joogtaa mise Isaaqistan xukuumaddan Muuse magacaabay ma xukuumad yani beeshii dhaxo oo magac yani laga xishooday in magaca laga bedelo Soomaaliland diinba aad iyo aad bay xaga ila khaldan tahay daliil weyn baa ku jirta waxa wada lahaa sheegay markuu xilka qaranka doonayay waxaan aad uga maqlaynay xukuumad loo leeyahay kooban oo isku dheeli tiran oo darafyada waliba beeluhu aad uga dhex muuqdaan oo aan jeegaantana hayno wax noocaas aan dhisay buu lahaa laakiin maanta runtii eragayna oo ku dhiiranayaa waxaan leeyahay madaxweynuhu Isaaqistan buu dhisay Soomaaliland dawlad iyo xukuumad ilaa imika uma dhisin qodobka kale runtii aan inaga boobayeen laakiin ku ixtiraamaya aan ugu mahad celinaya waxa weeye oo dariiqiisii haysta safarkii oo arrimaha dibadda ka bilaabay madaxweynuhu dalka jaarka ee Djibouti iyo Ethiopia marka Djibouti oo kale eegto runtii waxaan leeyahay waa dal aynu daris ka leenahay badda iyo barigaba waa dadkeenii waa dal maanta madaxweyne yani rugcada ka weyn ah oo siyaasadda Afrikaba ragga ugu mutakarsan oo hogaaminayo in halka ka bilaaba sax bay ahayd aad waan ugu hambalyeynaa runtii dadka reer Djibouti madaxweynuhu soo dhaweeyeen waan uga mahad celinaynaa in kastoo kaftanaaga ahaatay aad moodaysay madaxweynuhu markuu meesha tagay inuu ka jeclaa inuu isagoo madaxweynaha in la qaabilay inuu ka jeclaa isagoo gudoomiyaha sanama inuu kastoo moodaysay inuu ka jeclaa taasina waa cusubka ma lehe waxaan u malaynayaa yani dariiqa saxda ah ka Itoobiya ku xigay runtii dariiqii kale saxda ah ku xigay ayuu runtii isaguna ahaa labadaba runtii waan ku hambalyeynaa qodobka kale xasaasiga ee dalka yaal waxa weeye arrinkan sicir bararka ee dalkeena ku habsaday runtii isaga hortiina bilaabmay qaabka uu shiri madaxweynuhu wax uga qabo iyo guddidan u magacaabay waxa ka muuqata daacadnimo iyo xogaa aqoon fiican ka muuqata waxaan leeyahay qodobo badan oo muhiimana way soo saareen waxaan qabaa intaan waayaranimo iyo aqoon u leeyahay baanaka iyo lacagaha meeshaasi laba qodob baa saayid ku ah kamid oo ah saadkan lagu wareegaysanayay iyo sicirkan jaadadkii la kordhiyay midna sicir bararkan wax ka qatari maayo waxaan qabaa ku soo koobayaa taa iyaguna ay ku soo dareen runtii qodobka aan leeyahay waa uu muhiimsan yahay war lacagteena baanka ay nooga mas'uula lacagta Soomaaliland baa leh laakiin waxa ku qoran maanta lacagta waxa ku qoran baanka Soomaaliland lacagtani amarna hoos ugu dhici mayso amarna kor ugu kici mayso suuqa ma xukuma suuqana cid lihiina ku ilaashata way cid la lacagta lehina waa banka loo gacan baneeyo taawun baan isleeyahay runtii xal baa laga gaari karaa waxay imika ku shaqeeyaana ha loo dhigo qodobka kale ee laga xishoonayo Soomaaliland waxay dhawaan la hadli doontaa oo aynu aad u maqlaynaa Soomaalida koonfurta inaynu wada hadallo waxaan qabaa qodobkaasi waa mid sax maanta ma ahaato ama saacadda doontaa dhacday waa mid aan la hurayn inaan wada hadallo inagii dina ugu jirtaa wada hadalkooda waa inaan la hadallo waxaan doonaynay iyo sidaan ay nooga go'an tahay u sheegano danaheena halka ka bilowno Luqmaan Maxamed Farax Bulsha TV